marka hore ilaahay baa mahadle ilaahay halkan isku keenay waa mahadle marka xigtana shirkeena inta maanta wuxuu ku saabsan yahay ama uu daaran yahay waxa weeye maanta bishu tahay 26 bishii 10aad 2020 waxaynu ogsoonahay in ciidanka booliiska xilka iyo waajibaadka loo egmaday uu yahay inay ka hortagaan intaan dib dhicin haddii uu dhacana inay ka daba tagaan inay ilaaliyaan nafta iyo maalka dadweynaha Soomaaliland sida awgeed ciidanka booliisku iyagoo gudanaya xilka iyo waajibaadka loo egmaday waxay gacanta ku soo dhigeen 2 eedaysane oo u dhashay dalka Puntland kuwaas oo gacantooda lagu soo qabtay $1 milyan iyo 5,500 oo doolarka madow ah kuwaas oo doonayay inay ku qalqalgeliyaan nabadgelyada guud ee dalka inay ku curyaamiyaan sarfilayaasha ganacsatada Soomaaliland eedaysasha lagu qabtay waxay kala yihiin number 1 Faysal Abdishakuur Yusuf ina Seelib Cabdullaahi 40 jir ah number 2 Omar Maxamed Axmed ina Xalimo Farax 37 jir ah sidoo kale waxay ciidanka booliisku gacanta ku soo dhigeen eedaysane Ali Farax Warsame waa nin weyn oo loo yaqaan Cali Wadaad kaasoo gacantiisa lagu soo qabtay 28,800 oo doolarka madow ah oo lacagta madow ee doolarka ah dhammaan eedaysanayaasha saddexda haddii ilaahay yiraahdo waxaa loo gudbin doonaa maxkamadda iyo xeerlaalinta awoodda u leh qaadista dambigaasi intaasoo keliya kuma koobna lacagtan madow maxay ahayd forgery waxay hore ciidanka booliisku u soo qabteen eedaysanayaal tiradoodu dhan tahay ilaa 10 maxkamadda ayuu gudbiyeen waxaa lagu soo qabtay lacagta madow ee doolarka ah ee falsada ah maxkamaddu qaarna xukun bay ku riday qaarna waxay kurmaan ku yihiin xabsiga dhexe Hargeysa iyadoo ay iska caddahay in aan ciidanka booliiska cidda ka fakan karayn dadka dambiyada kala duwan caadaystay gelitaankooda sida lacagta madow ee forgery-ga kuwa sidoo kale sidaas darteed dadweynaha Soomaaliland waxaan uga digaynaa waxaan cod dheer uga digaynaa inay ka feejignaadaan oo iska ilaaliyaan oo iska hubiyaan lacagaha laga sarifanayo si aan loogu qarin lacagta madow si aan looga qarin lacagta madow ee doolarka Mareykanka ah ee been abuurka ah waxa kale oo aan u sheegaynaa bulshada reer Soomaaliland cid